waxay ahayd qolyaha aan dariska nahay ee Puntland iyo Somaliland sida dastuurku uu qorayo khaatimo bal xaajadeeni haday halka gashay iyagana in la arko iyagana iyada oo aan xujaba lagu xidhayn ila yiraahdo walaalo siman ma noqon karnaa war dhulkana waa wada leenahay arrimo badan oo inaga dhaxeeyana waa jira abtirsiina markii la doono laga soo saaro god lagu aasay na waa jirta waa qolyaha Puntland inta aanu ka aragnay ama ismahan noqdeen iyo cuqaal ama madaxdaas Puntland ha noqoto ama shacbi ha noqoto dad wax garada kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga wax xitaa yiraaha warbal aynu wax isla fiirfiirin oo sidii dad uun bal una jajaban laakiin wax diidayana ayaan iska dhigaynin kama aanan arag Puntland naguma eedayn karto ma oran karto dadkaas abtirsiinadii iyo wixii la isu ahaa iyo wixii waqtigan adag oo kale meel looga soo wada jeesan lahaa baa nalagaga baxay waana la hakraday ma oran karaan Somaliland cidda qura ee tiri diyaar baanu wada hadallo u nahay oo naadisay oo saxaafadda ka sheegtay oo adduun weynaha u sheegtay Puntland baa jirta Somaliland baa jirta Somaliland sidaasaanu wada hadallada u bilownay hadda Puntland oo dhismaheedii aan ka mid ahayn oo 1998 August lagu shiray Garowe hadda shirar baa ka horeeyay nimanka dhulka degani shirar badan bay hore u qabsadeen kii ugu dambeeyay Qardhaa lagu qabtay hadda taariikhda waa la hayaa warhoy inayba iyaku isu tagaan oo mid noqdaan oo maamul ilaahay dawo wuxuu uga dhigay dadka halka ka tagay haddaan loo tagin waa iska kala dhaqaaqi lahayn wixii la isu hayay oo aan laga faaruqayn oo lagaba dhamaanayni soo maaha Maxamuud Saleebaan warkiisa soo maaha soo waxay hadda wax u qaybsadaan ee cid kaleba laga heshiimaystay soo maaha Maxamuud Saleebaan baa wax geeya madaxweynenimadan ay ka geeya maamulkii iyo wixii marka loo wadaana toornaaba loo galay Abdullaahi Yuusuf baa bilaabay hadda ku xigay ina Faroola ku xigay Abduwali baa ku xiga haddana dib waxay ugu noqonaysaa hadda bal fiiriya waa Cismaan Maxamuud qolyaha xamar markii la yiri dawladnimo oo Cabdirasaaq iyo Cabdirashiid iyo soo noqnoqdeen yaa qolyaha shirabka warkooda ku dhameystaa waxayna mar waa Rasaaq mar waa Rashiid inta kale ma rootiba waroy taasa loo qaybsaday meel uga banaan dadkan ma jirto hadii dhab la rabo weey inta joogtaana siday ku joogto waa naqaan bal annaku warka iyaga Somaliland iyo waxa naga dhaxeeya annaka go'aansanay meeshay noo maraysana waa naqaan sidoo gudoomiyuhu sheegayena waxaanan ku qancin waxaanan annaku ku qancin waxna marin karaa ma jirto bal Arab Puntland inta ka yiraahdeen ummadan meesha lagu ururinayo geelkiiska meesha lagu ururiyo bal Arab ha yiraahdeen war Puntland maxaad horta noo haysaan maxaa dastuurka ku yaal arrintan ma muqaddas baa Maxamuud Saleebaan mise waa wax dadku ay yeelan karaan hadday doonayso reer biciidyahan iyo reer Maxamuud iyo Cali Saleebaan bal intaan ba annaka na soo gaadhin meelaha wax ma laga fiirin karaa waa maya war cidii tiraaha ma aanan dadaalin oo nimanka kuma aanan dadaalin in la kasbado war taariikhduna waa isqori doontaa insha Allah iyadoo qoran na waa ku rajo weynahay inay inoo soo baxdo nimankaas si allaale warba si allaale saa doontaan inoo sheego oo sidaynu ku wada hadalnaa horta marka horeba war ugu dambeeyay oo Burtinle waaga Burtinle ragaano isu raacnay gudoomiyaha iyo yaa kala joogay Maxamuud Axmed Yaasiin ninka odayga ah
muxuu ahaa xasan muuse cawl waray rag badan baanu ismana waa joogeenoo mashqaraa joogay dad badan baanu ahayn qolyaha culimaduna runtii door fiican bayba ku lahaayeen oo iyakaaba isukaya keenay laakiin waxa yaab kale markaana midda uu cabdiweli uu codsaday waxay ahayd majeerteen iyo dhulbahantay isuguma iman karno oo majeerteen igama ogola haye khaatumo iyo puntlandna isuguma ogolaan karno haye cumar maxamuud iyo khaatumaan isugu imanayn war labadaasu isuma dhigmaane sidee ay arrintaas ku suurtoobaysa anigaa keenaya xaqiijinaya haddii cumar maxamuud iyo khaatumo aada heshiisaan inaynu soo gaadhsiino markaa khaatumo iyo puntland meeshaasaan ku shirnay hadal badan baanu iswadaarsanay niman baa runtii aada uga dadaalaya arrintaa hawsha gacanta ku hayay isimaa awal ballanku ahaa gogosh inay dhigaan islaam bashiir islaam cabdulle islaam faarax uu kow ka ahaa ayaan daro guddidii loo saarayay xitaa abaabulaysay yaa wadaadka madaxweynaha ah iyo qolyaha odayaashaasi ku heshiin waayeen islaam bashiir waa ka baxay markaa shirkaas amiirka ninkaa odayga ah ee reer khalafna isagu ma iman laakiin niman kale cumar maxamuudkii waa yimaadeen uu ka mid ahaa nin dhintay bashiir cabdulle codweyn odayaha reer xirsi ahaa oo dhintay waxaa ka mid ahaa oo door weyn ku lahaa nin markii dambe lagu caana shubay oo imaam cabdiwahaab maxamuud guri yaa ka mid ahaa dadka hawshaa waday oo gaalka ayaa lagu dilay yaa ragga runtii buddigayaasha hawsha u ahaa alaayi xaal annagu guddi intayadii meesha joogto waxbaan ba isla soo dhaweyn waxaan nidhi aan guddi samayno oo habkii bahasha looga soo qaadi lahaa cumar maxamuud oo loo soo gaadhsiin lahaa puntland laba guddi aan samayno khaatumo iyo somaliland si puntland usoo gaadho si aad levelka aad idinku doontaanna ka soo haddaad wasare ka dhigaysaan haddaad xildhibaanna ka dhigaysaan haddaad isku dhafaysaan oo culamaauddiin iyo ningarbood iyo dadka dhaqanka haddaad waa ku soo heshiinayaan waxaa la yidhi magacyadii baanu idiin soo diyaarinaynaa maca salaama waabana soo gelbiyeenoo waxaanuba isla nimi meelaan u malaynaya inay gumbur ilaa gumburkaybana keenay laba casho ka bacdi baan wacay war arrintii xaggay maraysa war halinaga ahaada arrintii ma suurtoobayso oo maandhayaalo maxaa dhacay madaxweynihii baa yidhi arrintaas breshar badan yaa laygu kiciyey arrin aan sii wadwadi karaba ma aha war waxaanu tagnay oo konton baabuur iyo isimada ummaddan reer suuriya sanaagoo cadhan u dhan yihiin waxaanu tagnay qardho ballanku wuxuu ahaa qardho waxaad aanu ku imanayna annagoo khaatumo ah oo isimo iyo maamul iyo waxgaradka dadka ah sidaasaanu wadaadka madaxweynaha ka ah puntland uga heshay ilaa 7-8 telefoon yaanu arrintaa qorshaheeda isla meel dhignay ballankuna wuxuu ahaa meeshaana aan isugu nimaadno shirka ama markuu dhammaado ama iyadoo lagu jiraba aynu hawlaheenna wadahadalkeenna bilaabanno waxaa isna saa u soo ogaa oo martiqaadka loogu sheegay isimo fardi ah oo dhulkan ka socdaa ma imanayaane intaas soo isim oo reer suuriya sanaag iyo caynaa imanaysa shirkii baanu tagnay waa 50 baabuur ninkii hadalka qaybinayay wuxuu u mahadnaqay dad tuulooyin ka socda oo xaggan galmudug iyo xaggan waqooyiga tuulooyin ah magaalo heblaana loogu yimi waa mahadsantihiin waana soo sharafteen waa kan meel qura oo khudbadihiisa iyo warkiisa uu ku sheegay in wafdi hadduu doonayo yuusanba odhan khaatume reerkaasaa jooga afkiisa ma soo maray waa u tagnay warsee wuxuu jiraa maya arrintu saasaa qorshuhu saasuu yahay
لأنك هذا ما تشوفنا شرع نسيت شوفنا عبد ولينا كما أن ورهلين وذاتك عن الدبال دقي سأون منا وحلال وحكي مجد بهدلت لو قلت لك لي يعني أرنتها وقاضا بل عدة بنتلان لو حبان كهيا ما أنت سؤال كان ما تشوفنا حتى يبلغ قاضيان ولا هذا أي جليان أو أرمها نقد حيا أي دعادوا بحض ليان نحن محمئة دون وشدوا وحنطاي قبركم مغضاي ورهيس فرحين هالشيء